marka koowaad ilaahay baa mahad iska leh soo keenay meeshatan xafladatan qiimaha badan caawa aynu isugu nimi musharax cabdinuur sharmaarke xafladiisa uu ku soo bandhigayo musharaxnimadiisa tan labaad waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadweynaha ka soo qayb galay xafladda dhalinyaro waayeel gabdhaheena quruxda badan maamooyinkeena sharafta leh inta isugu timi meesha oo dhan waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan maacir magac waxoogaa buu qaldamay laakiin gadaal baan ka saxnay caawa waxaan u imi meeshatan ima ahayn inaan imaado saaxiibkii cabdinuur sharmaarke oo aan diidi kari waayey invitationkii uu ii soo diray oo ahaa inaan ka soo qayb galo xafladdiisa anigoo aad ugu hanweyn inuu yahay nin sharaf leh nin aan aqaano dadku waxay ka sheekaynayaan cabdinuur laakiin anigu waxaan u aqaanaa isir ahaan nin ka soo jeeda reer maxamed xaaji reer sharmaarke maxamed xaaji cabdinuur sharmaarke maxamed xaaji axmed waa nin qoyska uu ka soo jeedaa ay magac iyo maamuus ku leeyihiin reer maakhir gudahooda gobolka sanaag haddii ay intiina garanaysa maaha inta aan garanayn maxamed xaaji marka laga soo tago sharmaarke anigu waan soo gaaray gurigiisu wuxuu ahaan jiray fadhiid waxaa isugu iman jiray habeen walba waxaanu dariska ahayn meel la yidhaahdo ragaad ninkii yaqaan baa yaqaan oo ku taalla calmadow waxaanu dariska ahayn baran gurigiisu guri laga faaruqo muu ahaan jirin wuxuu ahaa guri ay isugu yimaadaan dadka inta magaalada martida ku ah oo aan laga faaruqin xagga deeqsinimada xagga dad jacaylka xagga martisoorka maxamed xaaji wuxuu ahaa dadka ugu gacanta furan ee ka soo kacay deegaankaas cabdinuur waad wada garanaysaan baan u malanayaa inaan idiin fasiro uma baahna waa nin reer Kenya ah almost 20 sano jooga waddanka waxa uu qabtay iyo hawlkarnimadiisa iyo ka soo dhex muuqashada uu ka soo dhex muuqday dhalinyarada joogta Kenya waa wax muuqda wax gacan lagu qaban karo weeye maaha wax xitaa la oran karo marka ninkan cabdinuur aniga xaggayga wuxuu ka ii saaran yahay madaxa aqoon ahaanna wuu dhisan yahay family ahaanna wuu dhisan yahay magac ahaanna wuu dhisan yahay waa nin u qalma anigu inkastaan kala weynaaba laakiin maadaama uu soo sharaxay waxaan aad ugu kalsoonahay in lagu taageero xubinimadaas hadday ahaan lahayd maanta cod iyo one man one show one vote hadday noqon lahayd cabdinuur muran ma galeen maanta laakiin weli waxaynu ku jirnaa habkii dhaqanka waxaan aad iyo aad uga codsanayaa isimadeenna dhaqanka oo ugu horeeya suldaan siciid cabdisalaam suldaanka guud ee beelaha harti suldaanka guud ee beelaha warsangeli inuu noo eego noona tixgeliyo haddaan nahay jaaliyadaha dibadda cabdinuur boos buu nagaga tegey oo nagu bannaynayaa boos buu buuxinayaa inuu noo siiyo xubinimadaas noona tixgeliyo aad baan kugu soo dhaweynayaa cabdinuur ku soo dhawow walaalle waan kuu ducaynaynaa ilaahay ha kula garab galo hadday khayr kuu tahay kolley waan ogahay oo xoolo u dooran maysle xilka aad qaadaysid ilaahay ha ku fududeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka xildhibaan waan kula dardaarmaynaa waxaanu kula dardaarmaynaa horta waxaad xambaarsan tahay future-ka ama hanka dhalinyarada East Africa ama qurba joogta haddii aad seerayso annagoo dhan baadna seeraysay haddii aad keento ku dayashana annagoo dhan baad message-ka noo xambaartay fasti markaas ka soo bax tagada aad calmatay ama aad hindistay ma aad hindisin xubin kaliya waxaad xambaarsan tahay message-ka East Africa marka walaalle waxaan kugula dardaarmayaa inaad
taxadar samayso la tashi badan samayso kansalin la talin samayso kuwa sabab waxaad xambaarsan tahay message-ka bulshooyinka East Africa ama qurba joogta taas waa tardaaranka iyo magarasa talagelinta aan ku siinayo ogow noqona mid og horta shaqada loo idmaday ka soo baxa doorka uu leeyahay kuwada sinaan iyo cadaalad xafladani inay maqbuulo tahay Cabdinuur Sharmaarkana arrinkan uu hanqal taagay Ilaahay idankiisa inuu uga baryayno Ilaahay inuu aqbal ka dhigo waxa kamid ah maalinka Jimcaha ee khayrka badan waxaan yar insha Allah bogaadinaya maadaama xogogaal aan ahay oo dalkii aan ka yimi mid Cabdinuur baan kula dardaarmaya idina waa codsiga hore oo gudoomiyuhu ay u jeediyeen salaadiinta wadankii sharafta leh ee wadanka joogta midna waa sabirsiinta jaaliyada reer maakhir ama guud ahaan D5 ama Soomaalida uu ka tagayo xilibaanku waana ka maarmin waa tan koowaad ee dalku Soomaaliya maanta wuxuu marayaa meeshii ugu qurux badnay siyaasadda Soomaaliya waa hana qaaday meel aad u qurux badan bay maraysaa waa ka soo gudubtay dadkii dhaqanka ahaa iyo macmalkii iyo dadkii aan aqoonta lahayn maanta waxay isugu tagtay aqoon-yahamiin mar hadday halka marayso Cabdinuur Sharmaarke waa kuma Cabdinuur Sharmaarke waa ninka aqoon-yahanka ah wadankan wax ku bartay aqoontiisu ma sha Allah ay hanaqaad ka tahay waa ninka maanta jaamacadaha iyo iskuulaadka iyo dalka aqoontiisa faraha ku haya ahna ganacsatada dalka ugu lambar sareysa inta markuu yahay waxa jira dadka xilalka Soomaaliya ka soo doonta inta badan waxay u badan yihiin dad baahana ninku hadduu baahan yahayna muqdar ma jeebkiisu maran yahay markuu dalka yimaado waa la iibsan karaa markuu dalka tago qadiyad weyn ma laha ummadda waxuma qaban karo waxna kuma soo kordhin karo laakiin waxa dhacday wadamada tan Asia madaxweynaha waxa la bedelaa 5 sanaba madaxweynayaasha ninba markuu shaqaystay oo dalkii ka fara qabsaday wuxuu yiri waxa sameeysan talaan idinayaa idaaya oo 5 sano aan wax qabsanayay waa dhamaatay 5tan wax idin qaban lahaa baa hadhay maanta jeebkaygu waa buux ina Sharmaarke waa nin jeebkiisu buuxo waa nin qani ah waa nin aqoon-yahana waa nin maanta Puntland iyo Soomaaliya isaga ay u baahan tahay waa ka codsanaynaa isimada harti iyo isimada Soomaaliyeedba iyo cid kasto ay khusayso in la fududeeyo oo lagala shaqeeyo booska sidoo uu heli lahaa xillibaannimada ah sida uu dadkiisa wax ugu qaban lahaa sida maanta dadkan wax ugu qabtay jaaliyada reer maakhir jaaliyadaha dalka ka dhisan ee D5 iyo jaaliyadaha Soomaaliyeedba ninka dhex muuqda wax u qabtay ka shaqeeya naftiisa iyo waqtigiisa iyo maalkiisaba u hurawi bismillaahir rahmaanir rahiim وعن سلام شرف لو درهيا حفلة شرف صبرا وروما موسى حلمان عبدالنور شرماركة محمد حاشي وحلمان مرشح هو حفلة أنا لدي يدسك السوي من أورنع وغربه وعليكم السلام يا سلامة إسلامك أفضل توكي بقولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي وعن كف سير بان كل سنة يا كفتن كياس وحوي Soomaaliya aabay hooyo dhalay dawladda cusub hada jirtana xildhibaanadeeda waxa soo dhisay odayaal ka dhaqanka Soomaaliyeed anigu waxaan ahay barasho wanaagsan suldaanka beelaha daarood ana gudoomiyaha dhaqanka Soomaaliyeed Suldaan Cabdicasiis Umar Daas Suldaan Bayna la yiraahdaa waxaan caawi u gudoominayaa daarood Ismaaciil dhaqankiisa dhalinyaradiisa iyo odayaashiisa waxaan u gudoominayaa xildhibaan murashax maana waan ogolaanay waa saxiixay shaabada ku dhufanay xildhibaan ka Puntland oo soo socota sanadkan 2024 inuu xildhibaan buuxay yahay هذيك
xildhibaanka backgroundkiisa markaan akhrino anugu dadka intiina aan u timid waa idinka weynay xagga da'ada magacaas weyn oo suldaankii daarood ee dhaqanka Soomaaliya gudoomiyihiisa waa wata waxaan taabanayaa backgroundkiisa suldaanka annaga daarood Ismaaciil marka la yiraahdo salaadiinta waxa ugu horeeyay suldaanka daashan awowgiisa wariijfa kadib salaadiintan abuurmeen dambe laakiin isagu waa isay waana aqoonyahan waana yara waa ninka aan sugaynay baa maanta noo yimid daarood Ismaaciil oo aanu ay suldaanka waxaa uu gudoominayaa in Cabdinuur Sharmaake Maxamed Xaaji in suldaanka oo saxo oo loo dhigo suldaankana waxaan ka rabnaa daarood Ismaaciil oo ka dhashay oo anagu aan ka dhalanay dabayl baa dhex martay madow oo qoraan la tilmaami karin baa qofba beelba meel u taagan tahay waxaan leeyahay suldaanka waxaan ka codsanaynaa inuu gobol daarood dhigo oo isugu yeero daarood dhaqankiisa iyo siyaasaddiisa iyo dadkiisa maamulka iyo gabdhihiisa maadaama suldaankii backgroundkiisa ugu horreeyay uu yahay dabayshaas inuu gobol dhigo oo daarood u soo jeediyo in ay wax alla wixii la soo maray oo dhibaatada uu iscafiyo oo xaaladani ka noqdo karabnaa suldaanka waardiyana ka isana waa sugaynaa inaad daarood sugo kuna guulaysatay nabadiisa daasiciidow annagoo salaadiinii Soomaalida oo gudoonkii suldaanka daarooda waa idiin soo gudbiyay Puntland sharaf bay maantay xanaanada oo hala ogolaado maadaama aan soo saxay madax ka sareeyay meel oo la saxay masjidka waa suldaankii asrayka oo kuuqa oo ururka xildhibaankii guud oo la doortay oo asaga oo aan dhalinyarada walbooga aan u ogolaanay u qaqaalinay inuu Soomaaliya la tartamo daaroodna isu keeno xildhibaannimadiisana shaabad baa ku dhufaya qaatoo nala qaado waxaan intaa ku gabagabeynayaa anugu u ducaynayaa in suldaanaha anagu amri baanahay 70 jir baanahay daarood Ismaaciil baan suldaankiisa yahay waxaan ilaahay ka baryayaa waa ducaynayaa ducadaas ilaahay uga aqbalana Allah siinayaa la wuxuu yiri huwa lahu asmaa husna fad'uuhu baa ugu barya Ismaaciil wanaagsan waa in aqbalaya ism baa ku jira Ismaaciil ma yiraahdo oo wixii ilaahay laga barya degdeg loo helo Ismaaciil fadligeeda Ismaaciilka ilaahay awoodiisa waxaan ku baryaynaa in xildhibaanimadiisa aan shaki dambe la gelin oo suu qaatay isugu dhawaad oo u yeelay oo u weydiisay inaad aqbalo 99 kan oo ilaahay ku baryaynaa awoodda asaga wax bixiya ummadda si taaqaabo tawale awliyo ku abxalba ka bixo ilaahay Ismaaciil saan ku barinay ilaahay inuu naga aqbalo waxaynu caawa isugu nimi xaflad xaqiiqiyan aad iyo aad u qiimo badan oo aynu ku isku garab taagayno musharax xildhibaan oday caaqil macallin runtii aad looga aflaxay iyo guurti Master Cabdinuur Maxamed Sharmaake Master Cabdinuur Sharmaake Maxamed sorry حقيقياً عبد النور كينيا جالية كينيا صوماليا جالية كينيا هي جالية جارهان خير سنة وحوها اللفدبر لكن وحن لا يهي هلك وصعده يهنك ويا شيء وودن كيه كم يهمسن إنه أديكو سدوا أديك شيء جالية صوماليا dhammaan gaar ahaanna siduu ugu ahaa lafdhabar jaaliyadda Kenya ee Sanaag ama Maakhir waxaan leeyahay xildhibaan mudane hankaad yeelatay Allah kuu guuleeyo waxaan leeyahay intii soo dhawow aad baan ku garab taaganahay haddaan nahay bahda ganacsatada bahda odayaasha dhammaan ummadda reer Kenya
soomaali oo dhan gaar ahaan reer sanaag oo garab taaganahay mudane musharax xildhibaan dowladda Puntland Cabdinuur Sharmaake oo runtii aan hadal ku soo koobi karayn wuxuu galo iyo wuxuu gudo waana sababta caawa halkaan keentay shakhsi kale caawa halkaan uma imaadeen laakiin maadaama uu Cabdinuur yahay oo invitation ii soo diray hadda taasi waa waajib waxaan rabaa laba kalmadood inaan iraahdo markay inta ka timaado labada kalmadood mid waxay noqonaysaa walaal Cabdinuur oo aan kursigan u sharaxan yahay ku bogaadinayo shacabka iyo bulshada reer Sanaagna aan kaga codsanayno codkooda siiyaan walaal Cabdinuur horta kursiga uu mudan yahay kursigaas wuxuu mudan yahay meel ka sareysa waliba aan waxaan oran lahaa dad badan hadday rabaan hay qabsadaan gobolada ka soo jeeda Cabdinuur wuxuu mudan yahay guddoonka baarlamaanka oo dhan uu mudan yahay halka uu hiigsanayna hadda waa xildhibaankaas hadduu Cabdinuur ku guuleysto dee waxaan ku bogaadin lahaa inuu guddoonka baarlamaanka aado Cabdinuur waa nin matali kara gobolka uu ka soo jeeda ee Sanaag degmada Dhaxar deegaan doorashadiisu tahay waa nin matali kara guud ahaan reer Puntland waayo sidaan hadda halkaan u joognaba Cabdinuur waxa weeye nin lafdhabar ah bulshada lafdhabar u ah reer Sanaag lafdhabar u ah reer Puntland lafdhabar u ah bulshooyinka D5 oo dhan lafdhabar u ah Soomaaliya oo dhan lafdhabar u ah waxaad ka dareemi kartaa meeshaan hadda aynu joogno hoolka aynu joogno shacbiyada uu ku haysto dhalinyaradu si u taageersan tahay Cabdinuur waa dhalinyarada ku dhex jira waa dhalinyarada og waa dhalinyarada hoos ahaan loo sheekaysta ma sha Allah dhalinyaradu marka waxa weeye waa u baahan anaga dhalinyar ahaan xildhibaanka say laftigiisu waa dhalinyarada cuslaatay oo nin weyn maaha xilka waankiisa wadna ka badisa intaan ogahay عيار ما هذا هالكيجو وعديا عيار ما هذا هالكيجو وعديا عدكيجا أنا عايز كله عاجز لما هربي عدام دونا أنا ما هتضعين كرا عدام دونا أنا ما هتضعين كرا أذكر لصوت أرتي وهيون على الأسماء أذكر لصوت أرتي وهيون على الأسماء وعبدنور شرما أركا يركها عوانا أفدي عبدي وعلة أوريه عبلغه مهير عبدي وعلة أوريه عبلغه مهير حدود الرئيس شرما أركا نعمهان عراءات كتير شرما كينا محمد معيه اللغة أنجعلا عسي الشرف بان عوائيس كي قطم آريا أطن قبي وحاها الله أطرش أهارح قبوه وحقا قبي وحاها الله أطرش أهارح قبوه وحقا بسعة مشرحها هنقا أبس نقوهم بقرها قصو ما شاء الله مشرحها هنقا أبس نقوهم بقرها قصو هيا وعبوكوهما أيينه يوهانهمنا ما شاء الله حكوكوهما أيينه يوهانهمنا ما شاء الله أقول إياك أشرب به بقربها أوصر أسري أقول إياك أشرب به بقربها أوصر سيدا كبنيم إياك عن وحدي هيبتيوك هاريه ربنا كبنيم إياك عن وحدي هيبتيوك هاريه ما شاء الله وحكاله الله قرتها الله اسمك رهاب عزدين وسع بيبي وحكاله الله قرتها الله اسمك رهاب عزدين وناقا هنقا أبس نقرهون ورنك لأقوان هيا وناقا هنقا أبس نقرهون ورنك لأقوان هيا عبدي يوكوه لا يسوى لهيك قضاء الهمان سيداكوية وجسكيه الرئير شرما أهارك نقوه وحيا ولبرر محمد حاجه بيقدها بطا بدا هوين أسنا أهاكوكو قافيا سيداكوية وقبت ما هقي لها هيدا نقل لها ديكا وبارن كما قام سكره كل سيد وقيا يقول الله أيام إيه شاد قربها ديكتا هيا حتى برامر وضعه المشوشي قال عبد النور وحاليها
الله يوهد أي مدهيقة وحكاتنا الله يوهد أي مدهيقة وحكاتنا سيدا كويه تنيدا هذيك أيسك عليه هودتك عن حكم حكومة تنيدا هذيك أيسك عليه هودتك عن حكم سيدا كويه وعلى صوت أرتي أنو نهايديا ديار أما يسكت أمانا أهان عوانا هايديا ودرسي عبد النور يوي هلك دهنيك أكويا وعبد النور شرما أركم دهول بها جعلا هيا وحدون هيا إلها هود شيء سكين وإذا السلام يا دمان وتشرف كسوقين وشي حفلة وحان لي عبد النور الله أقوليه ما شاء الله آمين runtii aad iyo aad ay u mahadsan yihiin dhammaan intii ka soo shaqaysay soo qabanqaabisay xafladan quruxda iyo qaayaha leh gabdhaheedana si gaaran ugu mahadsantihiin sababta quruxda maanta xafladda idinkaa iska leh marka hore dhowr qodob baan ka hadlayaa haddaan damuuse bixi karana waad cafinaysaa marka hore waxaan soo dhaweynayaa xildhibaanka runtii waa xildhibaan u qalma waa xildhibaan bulsho badan soo dhisay waa xildhibaan dee taariikhda maanta laga sheekeynaya oo maxaan kuu sheegaayay dee kama dhargano anigu laba dardaaran yarar baan siinayaa inta kalena dadka kale de waxna waa yidhahdeen waxna waa ay dhiman yihiin oo waaga baxaya dardaaranka koowaad runtii dardaaran caaqilkii guud daarood meesha uu ka yidhi baan rabaa inaan sii xoojiyo ahayd xildhibaan waa inaad daarood weyne madal uu ku kulmo markaad insha allah xildhibaad ku guulaysatid aad iskugu keentaa ama qardha ha noqoto ama baran ha noqoto ama taleex ha noqotee waa inaad gogol u fidisaa oo daarood oo dhan midaysaa taas waa dardaaranka koowaad dardaaranka labaad deegaanadeennii horumar badan iyo barwaaqo badan waxaan ku rajeynaa inaad gaadhsiisid waxaad aad culus anigu de waa kaalahan weyne waxaa isdhaa wartar waa madaxweyne puntland buu noqonayaa mise madaxweyne soomaaliyeed buu noqonayaa yeelkadeedii mar haddaaba xildhibaannimadii noo doonata anagoo dhallinyara hadda anaguna waan soo soconaa noostii gobolxaad oo sanadka dambana de waan soo deganaa insha allahu tacaala midda labaadna insha allah waxaan u rajeynaa xitaa inuu xidhaa gudoomiyaha xitaa baarlamaanka inuu qaato oo xitaa uusan xildhibaan qoriga ku ekaan waana booskiisii hadda saa ula socdo dadka intaan garanayno booskaas waa booskiisii marka aad iyo aad u mahadsan marka koowaad ilaahay waa mahadle xalfadan qiimaha badan qaayaad badan aynu iskugu nimi aynu ugu dabaaldegayno kuna soo dhaweynayno musharax xildhibaan anigu xildhibaan baan leeyahay cabdinuur waxaan leeyahay soo dhawow xildhibaan waqti loo baahnaa iyo saacadeedii iyo waqtigeedii iyo sanadkeedii ayaa timi runtii xildhibaanada kale waa waxbaa loo sii sheegi jiray waxbaa la sii fari jiray laakiin cabdinuur waa nin og waddanka waxa yaal gobolka waxa yaal degmada waxa yaal saa daraaddeed waxba uma baahna inaynu u sheegno wax kasta isaga ka buuxa wuxuu u baahan inaynu isgarab taagno oo la shaqayno oo inta maxaa toy uu Garowe joogo iyo intuu Nairobi joogo iyo intuu kursiga ku fadhiisanayo insha Allah waan inaan taaganahay dhammaan rag iyo dumar aad baan idin wada salaamayaa hadalka isku maana fiicnin anu luqyada iyo baan jeclahay inaan ka hadlo laakiin shantaraalka inaan ka hadlo ma jecli marka aad baan u soo dhaweynayaa xildhibaana Cabdinuur Sharmaake ilaahay waxaan uga rajaynaynaa insha Allah inuu ku guuleeyo xilka uu raadinayo waayo aniga boos weyn buu igu banaynayaa ninka Nairobi ugu hayay buu ahaa Nairobi ninka kaliya maxaan ku yiraahdaa shacabka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku xisaabtamaan buu ahaa haddana maxaan ku yiraahdaa dalka iyo maxaan ku yiraahdaa dhulkii baa u baahan waxaan marka koowaad aan taageeraynaa musharax xildhibaan Cabdinuur Sharmaake Maxamed Xaaji Cabdinuur Sharmaake waa nin ganacsade ah oo dalka Kenya muddo badan ku noolaa waa macallin soo baray arday badan haddana gacanta ku haya arday badan oo qaarkood ay sanad dugsiyeedkii ugu dambeeyey ee Kenya ay ka baxay Cabdinuur Sharmaake waa shakhsiga maanta ugu mudan inuu u tartamo kursiga xildhibaannimo weliba khaasatan kursiga beesha warsangeli weliba khaasatan kursiga beesha Bahma jirta degmada Baran
mar labaad iyo mar saddexaadba ka dhalinyarahaan dhalinyarada bahma jirteen dhalinyarada reer baran dhalinyarada reer sanaag iyo highland iyo dhalinyarada gobollada bari qaarkood waxa aan ugu soo jeedinayaa inay nala taageeraan musharax xildhibaan cabdinuur sharmaake maxamed xaaji maanta dhalinyarada reer sanaag waxa aan ku dhiirigelinayaa in ay helaan matalaad saxa oo gobolkooda matasha dhalinyaradana wax u qabata shaqadoodana muujisa xildhibaanka hadda kursiga ku fadhiya oo xildhibaanku u tartamayo oo ah guddoomiyaha baarlamaanka puntland cabdirashiid yuusuf jibriil dhalinyaradii reer sanaag shaqo la'aan bay garoowe iyo boosaaso ku joogaan waxa aan filayaa haddii uu ku soo baxo xildhibaanka dhalinyarada shaqo la'aanta inuu dhalinyaro badan uu shaqo abuur u samayn doono xildhibaane waxa aan kugula dardaarmayaa dhalinyaro badan oo shaqo la'aanta oo qaarkood sanadihii ugu dambeeyey waxbarashada dhameeyey qaar kalena ay joogaan gobollada puntland adiga oo eegaya mansabka aad ku fadhido xildhibaannimo in aad il gaara ku haysid dhalinyarada gobolka sanaag oo aad kursiga baarlamaanka ku matali doontid السلام عليكم اسمدا سلادينتا عقاشة وحجرتك علماء دينك جناعسtada dhalinyarada fanaaniinta faraha fudud ee la holin waayay caawa bahda saxaafadda dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa qof kasta magaca iyo mansabka uu ku fadhiyo maqaamka xafladan quruxda badan marka hore waxaan mahad celinayaa dhammaantiin ka soo qaybgalayaasha xafladan aan ugu talagalay inaan ku shaaciyo taasoo ay ku sharfeen dadkayga reer Kenya inay igu sagootiyaan waxaan u mahad celinayaa asaasayaasha iyo isku soo duubarayaasha iyo qof kasta oo ka soo qayb galay xafladan aad baad mahadsantihiin mahad celin iyo salaan ka bacdi haddaan iskiin baro magacayga inta badcaawa aad baa loo sheegay magaciina allaha sharfo magacayga waxaa la dhahaa cabdinuur sharmaarke maxamed waxaan ahay muwaadin u dhashay dalka deegaanka iyo diinta dowladda Puntland waxaan ahay laakiinse muwaadin ku koray dalka dibaddiisa wax ku bartay dugsi hoose dhexe sare ilaa heer jaamacadeed halkaas aan ku noqday ilaa bare asaase mid ka mida معهدة ugu waaweyn dalkan Kenya haddaan Isbaaniyo waa dareemi kartaa inaad ka noqoto Kenya bare ama asaase maxad waa dareemi kartaa it's not easy haddaan yaro kaftana ku darsado nin oday adaa igu yiraahdo macallin baaheede siyaasadda maxaa ka soo doonto horta sideeda waxaa jira wax la barto iyo wax la boogsado labada waxaana isku meel ma geli karaan qofku wuxuu bartay iyo waxa uu boogsaday tusaale yar baan soo qaatay waxaan ku dhahay wax weyn anigu ma siyaasaddan dhibaato iyo culays badan iguma hayso 4 milyan ee reer Puntland waxaan ka soo qaaday 40 arday fasalka ay fadhiya 40 arday fasalka ay fadhido waxaan xaqiijiyay inuu ardaygu yimaado casharkiisa qorto fahmo wax barto imtixaan u fariisto baaso shahaado helo shaqo tago sidaas la mid ah 4 milyan oo reer Puntland haddaan ku soo baxo booskan insha Allah waxay ku seexan doonaan nabad waxay heli doonaan shaqo waxay heli doonaan cadaalad amni iyo nolol qurux badan intaanan u gelin waxqabadkayga iyo waxyaabaha aan rabo iyo hamigayga waxaas waxa iga weyn
oo maskaxdayda ka soo guuxaysa oo aan dhibsanayaa qalbigayga iyo maskaxdayda aad ugu dhow dhibaatadan shaqaaqadii ka dhacday maalinta dhowta Puntland waxaan baaq u dirayaa dadka walaalaha ee diriirta ku dhex martay maalinta dhaweyd annagu og in la soo maleegay iyo meelaha laga soo maleegay sidaan ogsoonahay marka dagaal dhaco oo dad ehela walaalaha markay isdagaalaan hadhow xalku wuxuu ku dhammaadaa walaalaa leeyahay hal la heshiiyo marka dadka reer Puntland oo ku caan baxay nabad amni waxaan ugu baaqayaa walaalnimada inay hadda gartaan xilligan ma mudnin uma qalanno hal qof inuu inagaga dhinto shaqaaqa dad kale soo maleegeen taas marka laga yimaado waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa dowladda Puntland oo qabatay doorasho degaan dadkeedu ee ku ciilbaxaan qof walba codkiisa iyo gacantiisa taana aad baan ugu hambalyeynayaa dadka iyo dowladda reer Puntland inta marka laga yimaado waxa weeyaan aan hadalkeedu ku badineen waqtiga oo yar idinkoo qaybtiin isdheesaan macallin baa loo dhibay wadhan ma joojinayo inaan idin soo gaabiyo aniga horta waxaa igu kallifay baahi igu kalliftay ma jirto booska shaqo fiican alxamdulilah nolol fiican amni intaba waa haysta laakiinse markaan arkay baahida ee dadkaygu u qabaan xoogga iyo aqoonta aan halkan la fadhiyo waxaan go'aansaday inaan uga faa'iideeyo ma noqon doono mid danaysta haddaan booskaas ku soo baxo insha allah waxaan noqonayaa mid idiin daneeya ma noqon doono mid shaqaysta isagoo waxaan noqonayaa mid idiin shaqeeya ma noqon doono mid adeegtay waxaan idiin noqonayaa mid idiin adeega ma noqonayo mid idinka faa'iideysta waxaan noqonayaa insha allah mid idiin faa'iideeya intaa marka laga yimaado deegaanada aan ka soo jeedo anigu oo kursigaygu yahay Puntland marka laga yimaado gaar ahaan gobollada aan ka soo jeedo waxyaabo badan baa lagu xantaa waxaa lagu xantaa biyo la'aan wadda xumo ilaa 5 sano 6 sano hadda taagan haaf biyo la'aan maahay dadku dalku waxa weeyaan waan laga raadin waxaa dhacda riig inta laga soo kaxayo Garowe xildhibaano wasiiro agaasimayaal kulli inta la soo raaco badhan baa la keenaa meel raacinta la yaada la geeyaa waa la isku sawiraa looma kala har marka la isku sawirayo bartiis isagoo taagan aan waxba la raadin baa hadhow bil ka bacdi laga soo qaadaa meesha waa laga soo waayay baa la yiraahdaa waa mashruuc project iska socdo way ma dhamaado laakiin soo dhamaan doona xilligu dhamaan lahaa baa la gaaray هذا قف وضد حوا إسلام بالما بدأ كودنا سكفانيو لكن سوى حق سمين كرتو وأنا أتبلغ قادة and you have to keep your words وحق كل شيء كهينه سو هذا عسكري كذا نقول وحتى لا remember قالوا وصل دقيقة ديار بانو عين اللي يقول قاضي هذا كسر بحواي قولنا ضيق ويكبر حدونا قولنا الأمور نسيه أنا فرصة أن كفاية سنية هذا روح يريد كشيء بوس كانوا تاجنا هاي بيش أنا كان كسر شيء ضد كأن وذاك وبوس كسبحان قلنا يبه وذاك بيش دول ما يسنقبن أنت بدلنا كشتي هل كأمريكا فرصة بدنا بينوغا بنا ما أها قيمتي وحنا ما أنا أسبي دونتان وريرة يروي توريرين نجماها تريرين نجماها تيحمل نجماها وحنا هاي ضدك وجود تيدا ترادا تعليمتا ونكسب لنا كم بدنا لكن سبحان الله شرفناي ولا لها يجي كلام سيدا شرعيا
booska waxaa jirta wax la yidhaahdo heshiis iyo boos kursi heshiiska iyo kursiga heshiiska horeeya waxa lagu heshiiyay baa kursigaas qaab loo qaato adoo ku fariiso cabaar adoo hadhow sii qaado laakiinse Soomaalidan waxaan hormarinaa kursigeenu soo hormarinaa ama heshiiskeenu ka baxnaa هذه كرسي هذا هذه كرسي الله صور مريو وهالشيء اللي قبل وحي ما يصير إلا سكوت على كرسي أنا قاعدنا يعرق هذا مركب ولا لها كلامته كرسي قاسوها هي حنرجع وصلنا إلى هالشيء كفولية وكرسي أنا هور مرينه هالشيء اللي صور مريو dadka waxaan ugu baaqayaa kaleeto siyaasiyiinta waxa dhacda dalka Soomaaliya gabi ahaanba booska marka la raadinayo dadka waxa weeye waa lagu faa'iideysan dadka waxa loo isticmaalaa jaran ahaan salaan waxa lagu koraa dabaqa korkiisa inta badan guriyaha marka la dhisay meel markaad korayso markii meesha korto waxa dhacda inaad kursiga daarto haraati ku dhufato baalka salaanka aad meesha ku korto oo kor iska soo joogto iska soo harsato marka inta dadka lagu awrkacsado وسلام لقى لك تهدى وحد عذا مركو قفك وقت يصير دماغه إنه دبوا يمادوا إلى ضمية مركلة تهلي يعلي ضد مركل جديدنا إلى ضد ولا يجح ضد كان مركب ممضنا إن صار لنا الله استعماله كل لقى فائدة استممضنا حفلة أنا كديرانه هذا الكي أنا قم بدين ساعد وينوير أوجد waxaan ogaadinayaa soo dhaweynayaa halganka xaqu-dirirka hiil walaal ee ka socda Laascaanood ama gobolada Sool waxa la yiri qofka hadduu naftaada iyo gurigaaga kugu soo weeraro haddaad disho xataa ehlu janno laakiin haddaad sii cararto ehlu naar baad haddaad sii cararayad xabad kugu dhacdo Muuse bixi waxaan leeyahay Muuse شعب حلي عرور إيمات الله ين عرور إيمات الله يلاه مجال الدقيل شعب غير لاس عرور أنت قحان عرور إيمات حرجيس حرجوك كوسي عن مس تاس نية ذلك جرادو جويس يلي معايا جراد جويس قادر يحوي جنم قرأت بحيري قرأت دجال لكن أنا على اللاية كرسي هذا مو فريسو عم بلان قاضية أنا حرقوا حفيس وفريسان دونين تاينا حيران دونين أنت رير سولك حروبية مر لوادي برصة حابة ودي مهد علنية كسوغي قلكينا شرفتا تاغيردا كالجعلك احترامك تسمع مرة بقى قوت هذا تيجي نعاود سيسي شو كان يلا هذا ما سنتي thank you so much